السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يال meel kasta aad joogtaan habeen iyo maalin wanaagsan halkani waa durdur media group daawad yaal waxaan rabaa inaan ka hadlo shakhsiyadda dhabta ah ee fanaanka Cabdi Dhaanto yaa iska leh dhaxalka fanaanka caanka ah ee Cabdi Dhaanto yaa iska leh dhaxalka fanaanka caanka ah ee Cabdi Dhaanto waxaan rabaa inaan ka hadlo qabiilkiisa Cabdi Dhaanto qabiilkiisa beela kala duwan oo Soomaaliyeed ayaa siyaabo kala duwan isugu haystay oo dhahay Cabdi Dhaanto annaga waay okay beel walba waxay leedahay ninkan dhinaceena waaye qabiilkeena waaye annaga waaye qof kasta wax isdhahaan ama isdagaalaan tusaale ahaan ayaan dhaxas waxay qabseen arintan waxay soo shacabxday marka arintan qabiilka Cabdi Dhaanto oo beela kala duwan sheeganayo oo macna beela kala duwan kala sheeganayo beeshan waxay leedahay Cabdi Dhaanto annaga wiilkeena waaye beeshan kalena macna beela badan waaye beelkaas waxay annaga Cabdi Dhaanto wiilkeena waaye qaarkood xataa dhaantadiisa arkay oo kaliya oo maxaa la ka daawaday maxaa la baraha bulshada bis dhaantadiisa iyo fankiisa bis taageer salaama u kacaayo siyaasiyiin waaweyn oo beela kala duwan u istaagayo waxay malayaan inuu qabiilkood yahay okay macnaha waxa sababta uu kacaayo waxa waay ninkan waa nin saameyn leh oo ka canbaxay baraha bulshada special sanadkii dhamaaday 2019 iyo sanadkan 2020 ayuu guud ahaan gilgilaya social media si aan wax badan uga ogaano ayaa falanqeyntan waxaan u wakiishay in aan wax badan ka weydiiyo hogaamiyaha durdur media Maxamed Muuse Amiin Gulfaam oo ku sugan magaalada Baaqa ee dalka Faransiiska isla markaana hogaamiyaha ahaa reer Ethiopia gudoomiye Sodo wax ma santahay Xasan oo adiga iyo Libaasholla iyo Baana iyo asxaabta kale madashaar marqaatiga ka laakiin geesaha ka kamarada qabaneen mujtamaca ku xiran shirkadda waxa la markii hore waqtiga idin wacnaado haddaan u galo runtii barnaamijka xiisa gaar oo leeyahay shakhsiyan aad ay u tuslisay soo Cabdi Dhaanto kamid ah sababta badada dheer aqeenay ka hor intuu fanka soo gelin wuxuu ahaa arday wax barto oo Muqdisho joogo waxaan arkay halkan media kala baraha bulshada ama Facebook fanaatay waxaan ku arkay Cabdi Dhaanto aqeeno lagu diriraayo oo qolo shaatiga kaga dhigayso qofka markuu wax naqdo un baa isku dhigaa hadda adigaas ilaa Allah Xasan Toobe laba qolo kugu dhigan Soomaali baantir ugu dhigan tahay qolada oo asalkaadu yahay oo South West ama Koonfur Galbeed difaac ku jiraan way dagaalamayaan sida darf marka waa iska adag tahay qofka markuu caan noqdo in qolo kasta shaatiga iska dhig kanaga dad durmeedana xaqiiqda iyo asalkiisa iyo siyaasigiisa naqanaa iyo xubnaha dowladda federaalka Soomaaliya ku leeyihiin ka shaqsiyan runtii maadaama Xasan oo aan marqaati ka wada ahaynad qaraxiisa ama inuu bulshada guud ahaan Soomaalida qaashan dadka Facebook isticmaal waxay barteen 2019 dhamaadkii December xurguftiisa oo dhaxgal gashaasi iyo wasiirada ciyaaraha maama Qadiijo kan kale maxaa ballinta uu soo cabay markaas uu aad u qarxay laakiin inta kale soo fanaan waxa dhanka YouTube ka caanka laakiin Facebook saameyntiisa lahayn laakiin sida wada ognahay marka Muqdisho ama showida ka qaban jirnay uu marqaati ku ahaay waan arkay labada kasto markaas aan bartay shakhsiyadiisa iyo dadnimadiisa ka hor aan xog ku helay inuu ahaa reer Ethiopia maadaama halkaas oo subclank oo kaabtisa ama jufada kaabtisa ay degan tahay marka Ethiopia markii la dhahaana ilaa Ethiopia Soomaali badan wada degto waayay la soo dhaafay markii la Soomaalida Ethiopia degto qolo gaar ah afduul anaga Ethiopia degnays laakiin midda way ka duwan tahay barnaamijkeena Xasanow xiisa gaarna uu leeyahay ciwaanka idilo dadku waxay dhowrayaan ninkan waa beeshe ninkani ma waa beeshe maadaama Ethiopia beela kala duwan ay degaan muhiimadda ma ahan inaan qabiilka aan buunbuuninayno waa wax ka ogaanshaha dood iyo murun taagneed social media ka dhac taagneed baan rabnaa inaan dood weyn inaan u qabsano maadaama durdur media aan durdurayno inaan saas ugu ifino tooshka saas inaan ugu ifino tooshka aan ku siin ay bulbul aad ya hogaamiye sida darteed qof walba oo caan oo celebrity waa lagu sida qeyriyay farmaajo dadkooda maxaan ku raad diiwaanka u gashteen ay fanaaniinta weynkan sida Nimcaan Hilaaci maxaan ku dhahay Cabdi Raxmaan iyo qolo kasta qolo haysta laakiin shakhsiga lagu diriraayo oo dhaxalkiisa
magaciisa lagu dagaalsan yahay ay ciwaanka sheekada noqotay maadaama uu noqday fanaan Soomaaliyeed oo caan ah qofka markuu caan noqdane qofka ugu horeeyo ama oo arko wuxuu ninkan yuu yahay ninkan sida caadiga ah wuxuu qaaday heesa dhaanta oo inta badan Soomaalida lagu bartay degan Soomaali galbeed qaasatan dadka degan dhulka la yiraahdo Ogaadeniya ayaa runtii lagu khaldaa laakiin xaqiiqada midda ma aha ninka waa nin hawiye ah si official oo cadeynaya si hadda kadib dadka ay ninkan kuloti kaga dhigin ninkan waa nin hawiye ah especially waa ninka gondawa hawiye ah qolo jiilada ka yahay murul aan inta badan dadka fahmas ku yihiin waana qolada Kenya Ethiopia iyo Hirshabelle wax ku leh dadka dhulkaas balaan oo wadada kala duwan waana qoladii ama kalaankii ama qabiilkiisa wuxuu caan ku yahay jaadka Muqdisho hareeyay oo darkaysi guudaan koonfurta Soomaaliya qolada kaysto ganacsado Kenya power sharing hatta dawladdaas wax ka qaybsato waay marka kiiskiisa ninkan halka halaga jaadka xamar beeshiisa keento waa miya beeshiisa fanaanka aad marka waa nin gogolnimo hawiya haye especially wuxuu ka yahay maxaan ku raadayay ii sheeg jiide wuxuu muralna uu ka yahay oksiya marka waxdiisa soo si muralle marka nin noocaas oo dadkiisa iyo ehelkiisa yaqaanaan waay laakiin Soomaalida kale marka ninka lagu dhago way xumaanayaan sida darteed marka ninka ayaa lagu xumaanin gobolka Liibaan ee degan Ethiopia degan faafaan ay degan gobol badan Ethiopia degan Hirshabelle aad u degan oo especially gobolka Hiiraan ay degan Kenya waa NFD waa majority ma number fiican ka yihiin qaas numberka dadkiisa halkan sigoodan wuxuu yahay Hirshabelle hadaan qaldanaan waxay walaalo yihiin wasiirkii booska hadda ku fadhido wasiirada xurgufta kala dhaxaysa kursiga hadda ku fadhido oo ah wasiirka dhalinyarada ciyaaraha wasiirkii ka horeeyay Asha Sheikh walaalkiisa ku fadhiya adduunyada balsiisa ku disafiri walaalkiisa kursiga ku fadhiya oo hadda challenge gareeyay wasiir dadka inta badan wax u yaqaanaanay marka ninkan la yaqaano mujtamaca waxa la yaab xildhibaanka federaalka oo kursigiisa hataa oo tagtaan lagu geliyo sida dadka marka ninkan waa nin marka waa ninkan sugnaantiisa iyo dhalashadiisa lahaayo wuxuuna ka abtirsadaa qowmiyadaas sida guud hawiye la yiraahdo ayaa tirada ka badiyay marka waxaan leeyahay qolooyinka ku dhagaayo war adeer ila fanaaniin marka hadda gulfam aan ka dhex galo hadda dadkii difaacan jiray macnaha oo macnaha dhahay annaga waaye fanaankeenii waaye waxaa leedahay kiyaa ku dhuuqsada leedin iimaankiina kiyaa ku dhuuqsada qolooyin waxaa jira Soomaalida waxaa jufooyin waxaa jira fanaan laan hayso war idinka fanaan way kooyinka heesaasta kooyinka nin waxa ku dhacay nafteedii ani la wariyo hadaan wariyo jufa kaliya kuwas ala kamid wili xasalo jufadaadi wariyo baan fanaan oo taade laba kursi ugu fadhidaa كفتا كليا باشا كليا كما كوبنا دونتو كليا الفنا عبد دانتو وفلانقين جود وان فنانين الصومالي دون كودا فلانقين دون انا قاعد دي دون قبيل ما كجروا ما حسن دو فنان جود معها حسن دو شان كليا وحي قوسيسا وحي مرن كجرو او دحلكيسا اسكلا انا اسكلا sababta fanaaniinta inta badan waa caan waa la yaqaanaa hadda markaan dhahay sheegna ilaa fanaaniinta murunka qabiilkooda waa la soo bandhigaa fanaan hebel falan hogaamiyaha waxa maro ku jirin siro iyo kashifaada soo kabtaadi iyo magashini aday waxa maro ku jirin fala yaqaan gulfamo hadda ninka cabdi dhaanta legend kan social media gelgelaya sidee ku heshay xogtiisa waan haye waan ka dharagsanay waata ku sheegay Maxamed wada joognaan saaxiibo gaar ah oo waata habeen sita balaas program ka dhacayo ilka case ayaan saboorkiisa iyo shuruudiisa aqoonsiga ku qaatay masha saboorkiisa aan ka helay dhowr jeer waxaan maqlay isagoo dhan Muqdisho aniga iska leh cidiga xigta male ileende beeshiisa qaadka soo dejis ما مقدش قفل بس ماني ولا يا سيجارنا اسيغنا كل ما دام حمر جوج ماجورتي ما dadka xamar jooga maadaama majority asiga ay ku abtirsan sida guud marka loo hadlayo marka Muqdisho xaqin u leeyahay maadaama deegaanka dhulku yahay laakiin qof walba Soomaaliyeed dug mashruuc jooga xamar oo sheey kara adigaas xamar
waxbaa ku leedahay oo adiga kursiga buuxa kama yaalo ما يقدر مرك يكل كيست ما anfacayo gudoomiye degmo ma anfacayo taas waa la gaari doonaa siyaasaddaas waa la gaara hadda 18 degmo la isku haystaa oo weli dadka xamar jooga ka dhabalada marka waxaan kusoo gabagabeynayaa oo sheegayda qosaysa waxay ahayd yaana loo fahmin shakhsiyadiisa ninkaas iyo dabeecadiisa wanaagsan iyo qalbiga hadalkiisa qof maxaan ku waradaa xumaanta macsan ka sheeksin waxaa aaminsan afreeninta ugu dhaga fudud ee Soomaalidu inuu qayb ka yahay beeshiisana yaa lagu wareerin dhaantadan waa ku qaadayaale bas caadi u qaadayaa bas anoona la tashan Soomaalnimo anoona la tashan oo aan dhin anoona la tashan programkaas laga sameeynaya oo dudurka baxay anoona la tashan aan u sheegin ayaan programkaas sameeyay micnaheedu waxay tahay waa kalsoonida ku qubna faraanin kale waxa jirto programka ka qabanay isoo waxay dhahay maxaa wax u sameynaysiin ma fahad maxaa qabiilka u sheegay cabdi dhaanto kulli xiro yala lagu dhigin Soomaalida kaas laga foqaysan leh aad iyo aad ayuu maasay kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha durdurmeediya maxamed muuse amiin gulfaam oo qadka telefoonka magaalada baaqi ee dalka Faransiiska ugu jiray falanqeyn iyo xog iyo ku saabsan arintii alfanan cabdi dhaanto qabiilkiisa annaga waaye meel walba jidgooy jaranjara loo dhigtay annaga waaye qabiilkaana tagaa wuxuu leeyahay ani waaye kan maadaama oo dhaanto ku hadlay annaga waaye fanaankan maadaama uu tintis dheereed annaga waaye fanaankan maadaama uu fanaan style leeyahay annaga waaye fanaankan maadaama uu fanaan kartile uu yahay annaga waaye hadda waa isku soo dhamaatay beeshiis waa la sheegay kaameradii leeyahay insha Allah tani kulan dambe saasiyo nabad galiya